وحفلة aroos dhaqameedkan oo ka qabsoomay duleedka deegaanka Gatiitale ee gobolka Daadmareed ayaa ahaa mid ka duwan aroosyada ka dhaca deegaankaasi iyadoo arooskan ku lamaanayd sheeko cajiib ah. barwaaqadu afgaaraleedo aruskiinu koosade balse daawada intaynaa sheekadaasi u gudagelin aan in yaridii ku celiyo xafladii arooska iyo sida ay u dhacday. bilowgiiba waxa markaliya dhigahayaga soo jiitay durbaanka loo tumayo sida farshaxamaysan isla markaasina lagu ladhay saacabka uu isla seegu ka reeban yahay. daadihiya aroosku waa kan lagu jecel yahay deegaan ahaan markay noqoto tumista aroosyada waa nin arooska uu tumaa nin kale uu yahay nin ka tagay. waxaanu muddo ku caweynay heesihii hore kuwii dambe gabayo xigmado kala duwan oo Soomaalidu dhaqan soo jireen u leedahay.
caruuska iyo caruusada goobtu waa Muuse Maxamuud iyo Barwaaqo Yuusuf waa lamaanay sacalmado ku aqalgalay deegaanka Gatiitaley malxiisada aroosku waa Ayaan Maxamed Colaad waa gabadha ay sheekadeenu ku socotee Ayaan Maxamed Colaad waa xaaska caruuska goobta waxaanay raalli ka tahay inuu ninkeedu gabadh kale la guursaday welibana daawada aan kuugu daree gabadha iyada la soo kaxaysay waanay u dhistay habeenkii arooskiisana malxiisad ayay u noqotay waa arrin aad u cajiib badan dhifiye naadirna ay tahay gabadh noocan oo kale in la arko Muuse Maxamuud oo ah caruuska ayaan weydiiyay bal sidoo Ayaan uga dhaadhiciyay arrintani iyo iyadu sida ula qaadatay waxaan ku qanciyay horta marka hore inaan arrinkan deegaanka galay marka labaad wadaadaas handa u sheegay hore marka xigta waan wada hadashiyay markaan wada hadashiyay waxa weeye arrinku uu dhamaaday waa kaa daawanaytaan qaatay kulanta way baliyadu siday ugu qanacday markaad arrintaas u sheegtay baliyadu siday ugu qanacday isa arrinkii siday kula qaadatay waxay la qaadatay dad kalsooni aan iska qabnaba ay marka wax caqabado kale kula soo diristay ma jirtaa ma jirto dhankeeda waxaan iyadana wax ka weydiiyay dareenkeeda iyo arrintan ay sameysay bal sida ay ula muuqato Ayaan Maxamed Colaad caawa aroos xaajiga aroosa dhinaciisana waad fadhidaa waxa kale oo dhinaciisa fadhida gabadhii cusbeed oo aroos ay soo guursaday odagaagu bal adiga dareenkaaga caawa sidii wallahi dareenkaygu ma sha Allah si wanaagsan waayahay waxay dadku is weydiinayaan in arrintan hore uma dhicin oo dumarka Soomaaliyeed halkii ragga markii la guursadeen ay istaagaan weyn garanaynaa bal adiga arrintan dumarka is weydiinaya gabadhu maxay arrinta ku kaliftay amba de maxaa isbedelay oo dumarkii hore iska bedelay maxaad ugu jawaabi hooyo miskama kay bedelinayda waxaan leeyahay xajigu baan doonaynaa xasaro sameeyay anaan halkiiga ku jiro sababta kugu kaliftay inaad caawa arooskii mudanahaga aad ka qayb gasho waliba aad uga dhisto ee ugu weyn maxay tahay wallahi waa wanaagsantii isku qanacsanaan la isku wada qanacsan waayahay dumarka Soomaaliyeed ku daawanaya maxaad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahayd waxaan ku oray raalida ka noqdaan odigooda wax saasoo kala dayalaan in arrintaas oo kale ay sameeyaan aad iyo aad dood maasan tahay walaalo dhankooda waxa iyaguna arrintani aad u soo jiidatay dadka deegaanka arooskan la yaabka ku leeyahay waxa weeyaan waa aroos ay gabadhiisii hore uga soo malxistay gabadhan imakana ay hawshiisii dacal kala fadhido sida arkaysan wuxuu ka mid yahay dhacdooyinka dunida ka jira ayuu ka mid yahay intaan arkayay gobolkan Daadmareed gobolada Soomaaliland may ka dhicin qof ay gabadhiisii nin ay u malxistay hareeraha ka fadhiyaan waa arkaysan daawadayaal sidee labadaba hareeraha uga jiraan kuwan aroosyadii hore ee la aroosan jiray inantuna labadan hablood ee inanka hareeraha ka fadhiya ee labaduba ay marwooyinkiisii yihiina waa marwooyin cajaa'ib leh waa marwooyin baabiiyey hinaasihii galaabtay dadka meel bay kaga soo warrameen hinaasii way tuureen hablahani waxay sameeyeen xadaarad aad iyo aad u ballaadhan bay sameeyeen Ayaan Maxamed Colaad oo ahayd inanta marwadii hore ee xaaskii weynayda waxa ay samaysay guul ballaadhan oo guusha waxay u soo hoysay weliba ragga dumarka guusha way ka hoysay raggay u hoysay limankii yara baqanaya dubisi yara hayana waxa ay tustay inay la soo kaxayn karaanba dumarkii iska eegaya gabadha kale iska eegayay hadday meel ku wada noolaadaan inay guul tahay ayay samaysay waxa ay samaysay iyadaa uga soo malxistay oo inanka uga soo shaqaysay markii hore markii dambe uu kaxeeyena way raacdo way la gadoontay caawa oo malxiyay arooskii yahayna iyadaa u malxiisada oo hareer fadhida marwadan waa marwo cajaa'ib leh oo ilaashanaysa daryeelka qoyskeeda iyo qoyska labaad soo kordhayba waxaanu leeyahay dumarka ku dayda si sharaf loogu dayda waa khayrkiin waxaanu joognaa goobtii arooskii la yaabka lahaa ee gobolka Daadmareed ama meelahan waxa la sheegay jiray gabiile inuu ka dhacay ama boorama nin labadiisii dumar ahaa la malxiiseen laakiin tan waxay taasi dheer tahay la soo kaxaynta iyo la baadidoonka iyo hawlgalka loo ay u gashay marwadeeda kale ee uga malxiistay way la baadi doontay way la raadisay way la soo kaxaysay qisadan halkan ka dhacday arooskan ninkan labada hablood ee midna hore u qabay midna iminka ay la soo kaxaysay mid qisadan beledkan aad uga cajabisay bay noqotay waa dhacdo cajaa'ib leh gobolka Daadmareed aan leenahay dadka kale ha ku daydaan
soo quratay barwaaqadu cafigaara leedo caruskiinu koobsaday